ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمة بدن وين برنامج كنا واحد كمدا ورجيس كجيروسلم بوس أي قري إن إسرائيل أي كود حنيسة تضرب بقول يصد مليون $. ولا مرين هبابينيت يفافين دعاية لدون إن لجوها جاجيو ضربة حدي يوجه جبه إسرائيل أي كلام كلانتي يسمع حمدي dagaalka labada sano ee dadka reer Gaza ay u geysatay waa lacag ka badan budgetka Soomaaliya dawladeeda ay sanadkii samayso ama hesho haddaba waxaan isla eegi doonaa warbixinta Jerusalem Post oo qoray iyo sida adduunyada dacayada loo faafiyo iyo sida la isu jahwareeriyo waxay tahay ujeedada Israa'iil ay ka leedahay qodobada sidoo kale barnaamijkan idinku heenayna waxa kamid ah muuqaal dood badan dhaliyay ayaa baraha bulshada si weyn u qabsaday kaas oo ka turjumaya waxa hadda taagan waxna muuqaalkan waxa 1985 waa askari Israa'iili oo ku sugan gudaha Lebanon dagaalamaya laakiin hadal yaab leh ku hadlay aad moodaba inuu hadda ku dagaalamay kamid yahay waan ku hayaa iyadoo maqal iyo muuqaal warbixinta oo faahfaahsan qodobka ugu dambeeyay waxaynu ku dul istaagi doonaa wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka afayeen u hadlay ayaa sheegay inay wali wado soo afjarid dagaalka Lebanon ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Lebanon sidee ku soo afjaraysa waxaan ku hayaa iyadoo faahfaahsan warbixin maqal iyo muuqaal xambaarsan qodobada iyo kuwa kale ayaanu timid oo qoray wargeyska Jerusalem Post waxayna warbixintu leedahay Israa'iil waxay adeegsanaysaa lacag si ay u faafiso marin habaabin iyo warar beena taas oo la doonayo sumcaddii Israa'iil ee kaga dhuntay dagaalkii ay ku qaaday reer Gaza iyo dhibaatadii burburkii dilkii ay u geysatay caruurta iyo dumarka reer Gaza oo ay dawlado badan reer Yurub kaga niyajabeen Israa'iil waxa lagu waramayaa dadweynaha Yurub iyo qaybo badan oo Mareykan gudihiisa oo u arkay Israa'iil inay victim ahayd ama dhibana ahayd hadda inay u arkaan mid iyadoo duulaanka iyo dhibaatada wada waxayna keentay taageero badan iyo saaxiibo badan iyo dad badan oo u hayay niyad wanaag inay ka niyajabaan Jerusalem Post waxa uu qoray in Israa'iil nidaamka Netanyahu ay ku bixinayaan $730 milyan waa lacag ku dhow $1 billion ay ku bixinayaan $730 milyan waa budgetka Soomaaliya sanadkii qiyaas ahaan macnaa in u dhiganto maxay rabaan marka sida wargeysku uu qorayo waxa la rabaa in dadka adduunka laga dhaadhiciyay Israa'iil inay tahay victim dhibana inay tahay waa la faafinaya hal mar baa warbaahintii idaacadiga wax ka dhageysanaysaa sidaas Israa'iil loo galay sidaas ay sameeyeen doorasho ay qabteen carabtii la nooleed ay fursad siiyeen wadamada carabta saan u dhaqmaysa Israa'iil saana looga dhaqmay hal mar dadku waxay isla faafinayaan hadda mararka qaar waxa laga yaabaa inaad warbaahinada iyo social media aad ku aragto dad Soomaali iska dhaafta Israa'iil iyo Mareykan iyo reer galbeed iska daayay Arab iyo dad Soomaali oo baraha bulshada isticmaalo hal qoraal isku mid ah waxaad ku arkaysaa 20 qof ay soo wada galiyeen ama 20 page la soo wada sababta qada narrative baa la abuuraya waxba dadka la rabaa in laga gado hal mar baa xalilay oo madaxweynaha ayaa wuxuu dhisay jaamacadii ummadda hal mar la soo qoray jaamacadii ummadda ayaa la dhisay laami hebel ayaa la dhisay ay hal mar soo qoray laamigi xagga biyaha fariisin jahan mar haddana waxa arkay hal mar waxa la soo qoray madaxweynaha wuxuu burburiyay intaas oo guri hal mar waxa la soo gelaa qof qaylna waxa soo wada gelaa 20 page dadka caadiga ah waxay leen oo musiiba dhacday ninka wadanku burburiyay dadka way ku wareerayaan waxay leen maanta markii lagu celiyay dad kala duwan ka aragto waa aaminaysaa narrative baa aragti baa la iibiyaa dhinaca kale isla madaxweynaha waxa lagaaga dhigaa wax dahab oo cirka soo dhacay dadkii oo dhan hal mar baa 10 page amaanay wax ninka ninkii ugu horeeyay oo sida meesha ka sameeyo wada hebel dhiso 40 sano wadadaas lama dhisin Allah wuxuu qabtay alaleey laakiin dadka aqliga la maxay sameeyaan waxay raadiyaan ujeedka ninkan isku luqad ay ugu hadlayaan ilaa wayna hadda Al Jazeera isana ka daafiirso meelo badan way ku kala warduwan yihiin laakiin qodobka ay wada qaataan sababta qodobkaas loo wada faafinay maxay tahay hormuzo kalaad way xiran tahay macnaa waa adduunka oo dhan baahi u qabo laakiin in hal mar wixii ay aan muhiim ahayn idaacadii dhan ka hadlaan ama hal qolo isku saf ah salaay idaacadii wastigo kale dhinacay ka galay arinta kusna dhinacay rabaan inay wax ka sameeyaan marka Israa'iil waxa leeyahay waxay rabtaa inay adduunka ka iibiso
in qaladkii ay gashay Gaza dhibaatadii dadka reer Falastiin ay u geysatay sumcaddii kaga dhuntay oo xitaa dadkii taageersanaa ay kaga niyadjabeen inay dib u soo noolayso sidaa darteed baa waxaa la gudbinayaa sawirro qurux badan sawirro wanaagsan oo Israa'iil dhinaceeda oo aan jirin waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka xiga barnaamijka ayaynu toos u galinaa taasi waxay warbixin uu qoray Jerusalem Post muuqaal dood badan iyo hadalhayn badan dhaliyay ayaa baraha bulshada si weyn u qabsaday kaas oo muujinaya askari Israa'iiliya oo 1985 ka dagaalamay gudaha Lebanon agtaagan gaarigiisa kaaro agtaagay waa nin dagaalamay dagaal u soo tagay meel Lebanon kamid u dhaxtaagay wariyaha su'aal weydiinaya dagaalkii ujeedadii ku jiraan iyo sida ay dadkan ula dagaalamayaan ninkan waxa uu leeyahay waxaan ula dagaalamaynaa wax aan bani aadam ahayn dad dhan oo insaan ilaahay bani aadam kale wuxuu ku sheegaa inay dad ahayn bani aadam ahaan buu leeyahay waa argagixisu leh waagaasi isticmaali jireen kelmadda argagixiso waa 85 waa waqti 40 sano gaaraysa 40 sano ka hor 40 years ilaa maanta 2025 baa lagu jiraa aan ilaahay 2026 baa lagu jiraa 85 kiina ka hadlaya waa 41 years 40 sano kadib wixii askarigan uu lahaa ay maanta leeyihiin askarta Israa'iil siyaasiyiin Israa'iil qaar kamid ah dadka Falastiiniintu waxay ku sheegeen xoolo inay yihiin waxaana hadalka dhahay cidii aniga ma dhihin waxa dhahay wasiirkii hore dagaalka ama difaaca Israa'iil Yoav Gallant oo hadda maxkamadda ICC ay raadinayso dacwo lagu soo oogay isaga Netanyahu Yoav Gallant bilowgii dagaalka Gaza wuxuu yiri we're not dealing with human beings bani aadam lama dagaalamayna buraha ama lama macaamilayno xayawaanaad ayaanu la dhilgareynaa biyaheenu ka xireynaa wax kasta aynu ka joojinayna buraha askarigan 40 sano ka hor buu Lebanon gudaheeda wuxuu ku lahaa waxaynu la dagaalamaynaa xayawaano wariyii baa wuxuu leeyahay war dad dhulkooda difaacanaya dalkooda difaacanaya sidee xayawaan ugu sheegaysaa baleeg ilaahay baa fashiliyay muuqaalkan hadda la helay 40 sano kadib ila daaw I know I'm not dealing here with human beings. I saw them. They are all terrorists and they don't have any human feelings. So I cannot deal with those men how I would have dealt with other soldiers or something like this. Those are not soldiers, they are terrorists. Why do you say they're not human beings? Because I mean they do live here, don't they? They say that they are trying to defend their villages and but they know, as I know, that I don't want to be here for the war. I am here and they know just like all the world that in 2 months way kaasi waxa waa mid kamid ah askarta Israa'iil oo leh lama dhilgaraynayna bini aadam markaas lagu yiri dad doonay inay deegaanadooda tuulooyinkooda magaalooyinkooda difaacdaan sidee u leedahay ma aha bani aadam marka qofka aad la dhilgaraynayso ama wax kala dhaxayaan ama raba inuu dhulkaada kugu haysto uba ka aaminsan yahay inaadan bani aadam caadi ahayn sidee baad kula heshinaysaa ay dooda hadda taaganta 40 sano kadib Israa'iil kaarihii qorigii wadataa arabna sidii iskaga dawareeganay hal mabda iyo mowqif midaysan malahan qorshana malahan Israa'iil maanta sidii hore inay ka dhibaatay iyo dagaal badan tahay waliba kooxda military Netanyahu kooxdiis ma ahane kama shariyaro waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku soo afjaraynaa wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay wali wado qorshe ay doonayso inay ku soo afjarto dagaalka Lebanon Mareykanka ayaa 2 isbuuc ka hor muddo laga jooga ama ku dhow waxa uu wada hadallo ugu qabtay Washington dawladda Lebanon iyo sidoo kale maamulka Netanyahu waxay ahayd 40 sano kadib markii ugu horeysay Israa'iil iyo Lebanon ay soo fariistaan oo ay wada hadalla foolka ay ka yeeshaan xiisada labada dhinac gaar ahaan dagaalka Israa'iil ay ku soo qaaday qabsashada dhulka reer Lebanon wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar ayaa xilligaa sheegay in iyaga iyo Lebanon waxa ka dhaxaya ay tahay wax la soo afjari karo la soo gabagabayn karo in dhul yar oo xuduudeed buu dhahay laga wada hadli karo waa sida isagu leeyahay laakiin waxa uu yiri waxaan wax laga gorgortami karo laga wada hadli karin ay tahay in Xisbullah ay ku sii nagaato
dhulka reer Lubnaan wuxuu yiri waa inaanu isku mowqif ku yeelanaa oo isku jikeelna xilligaas waxa la xasuustaa Gideon Saar sidoo kale in uu yiri Lubnaan dawlad kama jirto fail state haddana wayla wada hadal bay kula jireen si kastaba ha noqotee xilligaas waxa lagu dhawaaqay 6 isbuuc xabad joojina in muddo 6 isbuuc xabadii la joojiyay heshiis la gal 6 isbuuc iska dhaaf intee ay ku codaysa 3 maalin xitaa dagaalka ma joojin 3 maalin intay ka soo wareeganin Lubnaan duqeyn bay ku wadeen oo way garaaceen koonfurta Lubnaan taas oo mar kale dood weyn dhalisay iyo in loo arkay in xabad joojintii ay burburtay waayo waxa la isku ogaa in dagaalka la joojiyo haysada la jiro laakiin markaasi waxa jirtay dood dhaysay xitaa Washington daacad kama ahan wada hadalada waayo waxay wada hadalsinaysaa dawladda Lubnaan oo aan dagaalba ku jirin inaan dagaal ku jirin ayaad wada hadalka keenaysaa kii dagaalka ku jira wada hadalkaad ka reebaysaa Hizbullah Israel bay in wada hadalsiyo ilaan cidda hubka haysato dagaalamayso Israel hortaagan oo qoyga duqeynayso qoyga Israel garaacayso Haifa iyo goobaha kale waa Hizbullah ma ahan dawladda Lubnaan Joseph Aoun iyo kooxaha kale shaqo kuma lahan Israel laftirkeeda ma aaminsano hadda marka ma dhamaaday wada hadaladii in Lubnaan mise raja jirto waxa arinta wax laga weydiiyay oo ka jawaabtay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka afayeen u hadlay ayaa sheegay in wali ay ku jiraan oo ay ka shaqeynayaan sidii wada hadallo loogu xalin lahaa xiisadda Lubnaan waa kana afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka arinta qaada dhigaya. No one is saying this is going to be easy, but what the United States is focused on is creating the conditions where good faith conversations between the government of Lebanon and the government of Israel are possible. Our goal here is long-term peace and prosperity. And that's why we're focused on creating the space for those good faith conversations. What we're seeing right now is Hezbollah trying to derail these conversations, both by launching attacks against Israel, but also threats within Lebanon. So our focus remains on creating the space for good faith conversations. The first conversations at this level of engagement since 1993. So we've seen historic events already taken place, but no one is downplaying the challenges here. No one is saying this is going to be easy. bas waxa ay warbixintii Al Jazeera ay ka diyaarisay ama ay ka soo qaadatay hadalkii afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka oo sheegay inay ka shaqeynayaan wada hadalada Lubnaan iyo Israel inay noqoto mid natiijo wanaagsan iyo wax ka ool ay ku soo dhamaato waxa uu yiri hadafkeena waxa uu yahay inaynu ka shaqeyno in dagaalka si maartay rasmi ah uu joogsado oo waqti dheerna uu ku dhamaado waayahay saaxiibada qiimiga lahow inta aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkeeni galabnimo oo aad kala socoteen Kow Somali Media tan inta aynu kulmayno barnaamijka mid ka xigo walaalkii Mustafa Ali oo idin leh nabadgelyada Ilaahay dushiina haato. Assalaamu alaykum.